madaxweyne Axmed Cabdi Kaari markii la dhisayay annaga horta ani kuleyba iyo saaxiibo badan hadda meeshan joog dadkii wax ka dhisay kama mid ahayn qoladii mucaaradsaneeda ka mid ah hal haysa marka waxa uu ah kelmad la yiraahdo waaye arag wax isku wadi kara marka waa isweydiino waxaan dhigi waaye arag wax isku wadi kara madraso nabadii nolol kama soo bixi kareysay wax jira darasadan waxaan dhigi ar iyo wir lagu barto faca iska celi lagu barto aniga kaliya wadani lagu barto hadaad iga aragtid wada qarandumiisa taa lagu barto ninka soo baxso dadka isku wadi karaa madaxweyne horta waxaan rabaa inaan ku qiro inaad tahay qofkii koobaad oo nabadoona oo akademiyada nabadii nolol ka soo baxay qodobka labaad oo runtii aan islahaa sidee la yeeli doonaa galmudug dadka markay xilka u tartamayaan soo jiidashada iyo qancinta dadka aad ay runtii ugu badan yihiin laakiin marka qofka xilka uu qabto waa la waayaa waxa uu sheegayaan inta badan waxaa dhici karta inay soo bixi oo waa tada Soomaalida ay ku maamaado ninaad duugtay iyo ninaad doorato markaas kuugu dambeeyo marka waxaan islahay ninkan odaga adoo akademiyadii ka badbaado kulleyba barlamihiisu halkaas ay aadi doonaan midnimada iyo dad isku dumidda iyo way aragnimadan uu sheegay midna waa la weyn doonaa inuu marka horta markuu kursiga ku fariistay hareerihiisa inta fiiriyo waa layga maqan yahay dadkii hala ii doono qof kasta uu waco oo guri iyo geed kasta iyo ama gudaha jooga ama dibadda jooga oo isku baadi goob madaxweyne horta ku maadsanta aadana kaga mahadcelinayna waxaa kaloo sidoo kale runtii dhaqan ugubana way ku tahay siyaasadda iyo dadkan reer muduga dad badan waa ayaa la yiraahdaa runtii aan xaalkoodu sahlanayn nin reer muduga hadda kor waxaa la yiri afar caad hilib oo haystale marka su'aal la weydiiyay waxaa la yiri afar caad hilib aad haystaa nina ku yimid labo ka daf meeqa ku hartaay oo aad haystaa marka wuxuu yiri shan caad aan haystaa waxaa la yiri shan caad ku haystaa afar haysatay laba laga dafay sida shan ku haysan kartaa waxa haystaa afar aheed marka waxaan haystaa yiri afartii cad iyo ninkii meedkiis shantaas caad aan haystaa dadkii ka maqnaa horta madaxweyne inaad meedkooda la ii doonay isku baadi goobta si nabadgelyo oo ku maasantahay iyada waa runtii dhaqan ugu hoon islaanahay oo sidoo uu yahay in la isku tanaasulo dadka la isku baadi goobo la isqanciyo wax runtii sunnah oo jideeday waaye waan lagaaga dayo doonaa insha Allah hadii la yiraahdo anigii inta ila mid kaaba waan ku hambalyeynayna diyaaraan una insha Allah garab iyo gaashaan inaan ku noqono wax kula qabano wixii naloo diray aan doono wixii dhimanaan dhamaystirno meesha galmudug hadda ay joogtaan ay hore uga sii socotaysan dib uga laaban insha Allah saasaan rajaynayna diyaaraan una aad iyo aad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.